Stonehenge waa mid ka mid ah dhismayaasha taariikhiga ah ee ugu caansan adduunka. Stonehenge waxa uu ku yaalaa koonfurta Ingiriiska, meel u dhow magaalada Salisbury ee gobolka Wiltshire, waxayna ka mid tahay hiddaha qadiimiga ah ee UNESCO ay ku dartay liiska dhaxalka adduunka. Dhismahan cajiibka ah oo la aaminsan yahay in la dhisay qiyaastii 3000 ilaa 2000 oo sano ka hor ayaa ah dhisme ka kooban dhagaxyo waaweyn oo loo dhigay qaab gooni ah. Inkasta oo la isku dayay in la sharaxo sababaha dhismaha iyo habka loo dhisay, weli waa sir aan la xallin. Qaybta ugu weyn ee muuqaalkani waxa uu diiradda saarayaa su'aasha ah sidee loo dhisay dhagaxyadan waaweyn iyo sababaha keenay in Stonehenge ay noqoto mid ka mid ah siraha taariikhiga ah. Stonehenge waxaa loo dhisay qaabab kala duwan oo ay ka mid yihiin dhagaxyada looxa iyo dhagaxyada yaryar ee qaabka ciribka ah. Dhagaxyadan waxaa la rumeysan yahay in lagu dhisay xilliyo kala duwan oo ka bilaabmay qarnigii 4aad ilaa qarnigii 2aad dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam ka hor. Waxaa la ogaaday in dhagaxyada looxa ay ka yimaadeen meelaha ku dhow Stonehenge, halka dhagaxyada bluestone ay ka yimaadeen meelo fogfog oo u dhow Wales. Waxaa sidoo kale lagu qiyaasayaa in Stonehenge ay ahayd goob lagu qabto xafladaha iyo shirarka bulshada, halkaas oo ay dadku isugu imaan jireen si ay u wadaagaan fikradahooda, dhaqankooda iyo xafladaha. Dhismahani waxa uu u muuqdaa in uu leeyahay qorshe iyo naqshad si wanaagsan loogu fekeray. Cilmi baarayaashu waxa ay soo jeedinayaan in dhismahan la qorsheeyay ka hor intaan la bilaabin. Dhagaxyada looxa waa loo dooran jiray iyadoo la fiirinayo cabbirka, miisaanka iyo qaabka. Dhagaxyada kale ee ka yimaadeen ilaa 300 ilaa 200 oo kiiloomitir dhinaca galbeed ee Stonehenge, laakiin sida loo dhammaystiray ama loo gaarsiiyay dhagaxyadaas fogfog weli waa su'aal. Waxayna ka kooban tahay qaab dhismeed sida qasriga oo kale ah, buundooyin iyo qaababka kale ee dhismaha. Qaab dhismeedkan ayaa la dhisay iyadoo la adeegsanayo qalab kala duwan oo ay ka mid yihiin qoryaha iyo birta, taasoo muujinaysa in dadka dhismayaashan leh ay ahaayeen kuwo xirfad leh. Waxaa la rumeysan yahay in dhagaxyada la qaaday iyada oo la adeegsanayo habka guran oo laga yaabo inay isugu jiraan qolof, dhagaxyo iyo ulaha si ay u fududeeyaan dhaqdhaqaaqa. Dhagaxyadan waxaa lagu guran karaa ulaha laga yaabo in la adeegsan jiray si ay u xakameeyaan socodka dhagaxyada. Markii la keenay dhagaxyadani, waa la istaajin jiray iyada oo loo adeegsanayo agab si ay u dhistaan saldhigyo. Gaar ahaan dhagaxyada looxa waxaa la dhigi jiray iyadoo la adeegsanayo godad ama harooyin si loo xakameeyo in ku adkaadaan dhulka. Dhagaxyadan kale ee bluestone-ku waa kuwo yaryar, waxayna u muuqdaan in si fudud loo dhigay oo aan fiicnayn. Kadib markii dhagaxyadu la dhigo, waxaa la adeegsan jiray agab dheeraad ah sida ilaha iyo dhagaxyada kale si loo xakameeyo inay isku xirmaan oo aanay kala leexanin. Qaab dhismeedka Stonehenge waxa uu muujinayaa in si weyn loogu fekeray dhismaha isagoo la isku xiray dhagaxyada. Sidoo kale, Stonehenge waa mid ka mid ah dhismayaasha ugu caansan taariikhda aadanaha. Si kastaba ha ahaatee, dhismaha iyo ujeedada dhagaxyadan waaweyn weli waa sir aan la xallin. Waxaa jira mala-awaal iyo baaritaanno kala duwan oo ka hadlaya sida loo dhisay, sababta iyo ujeedada, balse waxay weli xiise u leedahay taariikhda, cilmiga iyo dhaqanka. Stonehenge oo ah hiddaha qadiimiga ah ayaa weli ah meesha ay dadku booqanayaan si ay u arkaan qarsoodiga iyo quruxda dhismaha taariikhiga ah. Goobtan ayaa noqotay mid ka mid ah goobaha dalxiiska ugu caansan ee Ingiriiska, iyadoo ay soo booqdaan malaayiin dad ah sanad walba. Tani waxa ay ka caawisaa dhaqaalaha deegaanka, maadaama dalxiisayaashu ay ku bixiyaan qarashaadka booqashada
hoteelada iyo adeegyada kale. Dhismaha Stonehenge waxa uu noqday goob cilmi baaris oo la xiriirta taariikhda, cilmiga bulshada, iyo astronomiyada. Daraasadaha ku saabsan Stonehenge waxa ay bixiyaan fursado cusub oo lagu baranayo dhaqamada qadiimiga ah iyo hab-nololeedka iyo tiknoolajiyadii ay isticmaali jireen dadkii hore. Sidoo kale waxay leedahay qiimo weyn oo dhaqan iyo hidde ah, iyadoo ay muujinayso horumarka aadanaha, fikirka iyo isdhexgalka bulshada. Waxa ay sidoo kale leedahay kaalmo weyn oo ku saabsan dhaqanka bulshada ee Ingiriiska. Stonehenge waxa ay door ka qaadataa ilaalinta dhaxalka qadiimiga ah ee Ingiriiska, waxayna noqotay astaan ka turjumaysa hiddaha iyo dhaqanka dadka reer Ingiriis. Waana dhisme sir ah oo xambaarsan taariikh qadiimi ah, ayaa si weyn u saameeyay dhaqanka, cilmiga iyo dalxiiska Ingiriiska, wuxuuna weli siiyaa dadka fursad ay ku baran karaan xusuusta qadiimiga ah ee aadanaha. Waxaa la rumaysan yahay in ay dhiseen dad shacab ah oo ku noolaa Ingiriiska waqtigaas, gaar ahaan bulshada loo yaqaanay dadka dhagaxa weyn oo ku noolaa Stone Age iyo Bronze Age. Goobtani Stonehenge ma ahayn dhisme dowladeed oo si rasmi ah u qorshaysan sida aan hadda dowladaha u aragno, balse waxaa la aaminsan dadka deegaanka oo ah xoolo dhaqato iyo beeraley ay dhisteen dhismahan iyagoo isku tashi iyo iskaashi u sameeyay, iyagoo adeegsaday farsamooyin aad u horumarsan oo ku salaysan aqoon qarniyo soo jireen ah. Bulshadaasi waxa ay lahaayeen hab dhismeedyo cajiib ah oo ay ku qaadeen dhagaxyo aad u waaweyn oo laga keenay meelo fogfog, waxaana dhismahan la dhameeyay marxalado kala duwan oo soo qaatay qiyaastii ilaa 1500 oo sano. Waxayna isticmaaleen aaladaha ugu horreeyay ee dhagaxa, loona maleynayo in dhagaxaantan waaweyn loo dhisay in ay ku saabsanaayeen cilmi jihaynta iyo xafladaha bulshada. Stonehenge waxaa si weyn u baaray cilmi baarayaal iyo khubaro badan oo ka kala yimid daafaha caalamka. Cilmi baarayaashu waxay sanado badan ku jireen baaritaan ku saabsan asalkeeda, ujeedada loo dhisay, iyo sida loo dhisay. Waxaa loo adeegsaday farsamooyin kala duwan oo casri ah iyo kuwo dhaqameedba si loo fahmo taariikhda goobtan cajiibka ah. Qaar ka mid ah cilmi baarista muhiimka ah ee la sameeyayna waxaa ka mid ah archaeology ayaa baaritaanno ku sameeyay Stonehenge laga bilaabo qarnigii 17aad. Waxa ay qodeen goobta si ay u helaan caddeymo taariikhi ah oo ku saabsan dadka dhisay, habka loo dhisay, iyo qalabkii ay isticmaaleen. Waxa ay heleen qabriyada dadka dhintay oo la rumaysan yahay in ay ahaayeen dadkii dhisay ama dadkii goobtaas ku noolaa. Sidoo kale, cilmi baarayaashu waxa ay adeegsanayeen farsamooyinka casriga ah sida raadaarka si ay u baaraan waxa ku hoos jira dhulka hareeraha Stonehenge iyagoo aan qodis sameynin. Waxa ay heleen goobo kale oo dhismo ah oo ku dhow Stonehenge, taas oo muujisay in goobtan ahayd xarun weyn oo ay ku kulmaan bulshada. Waxyaabaha kale ee loo adeegsaday goobtani waxaa ka mid ah 3D scanning, taas oo ka caawisay cilmi baarayaasha in ay si sax ah u qiyaasaan waqtiga la dhisay iyo da'da dhagaxyada, taas oo muujisay in dhismaha Stonehenge uu socday muddo ka badan 1500 oo sano. Sidoo kale, anthropologists ayaa daraaseeyay noloshii iyo dhaqankii dadkii ku noolaa Stonehenge xilliyadaas. Waxa ay baaritaanno ku sameeyeen burburka jirka, qalabka iyo haraagii la helay, taas oo u muujisay in dadkaasi ay ahaayeen xoolo dhaqato iyo beeraley, kuwaas oo fikrado aad u horumarsan ka haystay xiddigaha, quruxda dhulka. Cilmi baarayaashu waxa ay rumaysan yihiin in Stonehenge loo dhisay ujeedooyin badan oo ay ka mid yihiin goob cibaado, xuska cimilada, iyo xafladaha bulshada isugu yimaadaan. Waxaa sidoo kale lagu qiyaasay in dhagaxyada qaarkood laga keenay meelo fogfog sida dhagaxyada Blue Stones
ee laga keenay Wales oo ku taalla 250 kiiloomitir meel u jirta Stonehenge. Dhammaan baaritaannadan iyo daraasadaha lagu sameeyay Stonehenge ayaa weli sii socda, waxaana weli la raadinayaa su'aalaha aan weli jawaabta loo helin, sida dhagaxyadan waaweyn loo raray iyo ujeedada saxda ah ee loo dhisay.